Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaynu maanta dul istaagi doonaa tobanka dowladood ee dunida ugu soo dhoweynta badan dumarka. Ha ahaato fursad u siinta dumarku ama habluhu inay helaan shaqo, heerka waxbarasho inay ka gaaraan jaamacadaha, ama waxaa lagu tilmaamay in cadaalad loo sameeyo heerarka fursad u helidda dhinaca manaasibta ama jagooyinka siyaasadeed ee dalalkaas aan xusi doono in dumarku ay ka helaan. Weliba iyadoo lagu tilmaamay dalalka qaar aan sheegi doono in run ahaantii xataa ragga iyo dumarku ay u sinaadeen fursadaha guud ee dalka laga helo. Haddaba tobankan dowladood waxaan u xusaynaa sidoo kale inaan fahanno kaalinta dumarku ay ku leeyihiin horumarka iyo baraaraha caalamka, gaar ahaan dowladaha dumarkaas laga soo dhoweeyo, wax la baro, hankooda iyo hanaqaadkoodana qayb laga noqdo. Waayo dumarku waxaa weeye waa run ahaantii lafdhabarta bulsho kasta marka laga reebo xaaladaha qaar. Waayo dumarku run ahaantii waa mug aan la qiyaasi karin oo dalal kasta horumarkooda kaalin libaaxa ku yeelata. Haddaba tobanka dowladood waxaan si gaar ah u taaban doonaa sababaha loogu doortay. Sidoo kale sababaha dalalkan tobanka ah loogu doortay inay yihiin tobanka dowladood ee dunida ugu soo dhoweynta badan dumarka ayaa waxaa ka mid ah fursadaha dumarku ay ka helaan dalalkaas iyo noloshoodu sida ay tahay. Sidoo kale cawaamisha ka qayb qaadata dumarku inay fursadahaas u hanqaltaagaanba. Waayo dalalka qaar waxaan ognahay dumarku inaysan xataa ku riyoonin in jago iska daaya xataa xuquuqdooda in lagu tixgeliyo. Sidoo kale waxaa lagu doortay dowladahan tobanka ah inay yihiin in ay aad u yareeyeen runtii masaafada ama tirada u dhaxaysa shaqada dalalkaas dumarku ay ka haystaan iyo raggu ay ka haystaan. Sidoo kale waxaa laga eegay celceliska fursadaha dumarku ay u helaan in ay heerka jaamacadeed ka gaaraan. Sidoo kale waxaa laga eegay fursadaha dumarku ay dalalkaas fursadda ugu heleen inay dalkooda ku matalaan dhinaca siyaasadeed. Sidoo kale waxaa laga eegay siyaasadaha la xiriira isla ekaanshiyaha ama isu cadaalad samaynta fursadaha guud ee dalka, taasoo la oran karo waxaa lagu tilmaamay in rag iyo dumarku si siman ay fursadaha dalkaas ka jira noocay doonaanba ha ahaadaane inay u helaan. Sidoo kale waxaa kaloo lagu xusay in dalalkani ay yihiin tobanka dowladood ee dunida marka loo eego dumarka ay ugu fayaqabaan ama ay ugu xasilid badan yihiin marka la eego iyaga ka jinsi ahaan ka dumar ahaan in dhibaato loogu geysto. Sidoo kale waxaa tobanka dowladood loogu xushay inay yihiin tobanka dowladood ee dunida ugu soo dhoweynta badan inay ka mid tahay sidoo kale mawaaqifta ama fikradaha bulshooyinka ay ku dhex nool yihiin ay ka aaminsan yihiin kaalin door ah in dumarku ay ku yeelan karaan isla dalkaas. Xaaladahaas ayaa waxaa loogu doortay tobanka dowladood een xusi doono inay yihiin tobanka dowladood ee dunida ugu soo dhoweynta badan dumarka. kulanti wanaagsan, magacaygu waa Saadiq Sheekh Maxamed. Haddii booqashadaadii koobaad ee bartan ay tahay, fadlan nagu soo bir. tobanka dowladood ee dunida ugu soo dhoweynta badan dumarka markaan bilowno ayaa dalka koowaadi wuxuu yahay dalka Iceland. Dalka Iceland waxaa la sheegaa in tirada dumar ee fursadaha shaqo, waxbarasho iyo wax kastoo dalkaasi yaalla ay u heleen ayaa waxaa lagu qiyaasaa inay tahay 7.64%. Haddaba dalka Iceland ayaa waxay yihiin caalamiyan marka la eego ragga iyo dumarku kuwa u siman fursadaha guud ee dalka ka jira, iyadoo lagu tilmaamo dalka Iceland inuu yahay dal mudan in looga daydo sida dumarka ay uga dhigeen kuwo siyaasadda dalka matala, dhaqamada matala, aqoontana matala, sidoo kalena ah muc la taaban karo dalkaas horumarkiisa run ahaantii kaalin libaaxa ku leh. sidaas la mid ah dalka Iceland waxaa la sheegaa in kala bar dumarka dalkaas ku nooli in ay haystaan ama ay gaareen heerka waxbarasho jaamacadeed. Ma aha dugsi sare, ma aha dugsi dhexe, ma aha dugsi hoose, balse heerka jaamacadeed ayaa kala bar haweenka dalkaas u jooga ama u dhashay ay yihiin kuwa kala bar jaamacadaha heerka jaamacadeed gaaray, taasoo ku muujinaysa kaalinta mugga leh ee dumarku ay ku leeyihiin dalkaas. Sidoo kale waxaa la sheegaa
qaanuunka dalkaas ka jira ama dastuurka dalkaasi inuu si xoog leh u taageero dumarka gaar ahaan xuquuqda dumarku ay ku leeyihiin dalkaas gudihiisa ha ahaato dhinaca muxuu ahaay dhaqanka ha ahaato dhinaca muxuu ahaay shaqaalaysiinta ama ha ahaato dhinaca waxbarashada sidoo kale dalkani guud ahaan marka la eego waa dal ku dhiirigeliya dumarku in ay la loolamaan ragga siyaasadda ha ahaato shaqo ha ahaato waxbarasho ha ahaato dhinaca kastoo bulshada saameyn ku leh ha ahaato sidoo kale waxaa la sheegaa heerka u dhexeeya ama kala fogaanshiyaha u dhexeeya ama tirada u dhaxaysa ragga iyo dumarka marka loo eego fursadaha dalkaasi in wax aad u yar ay yihiin bimacnaa in tiro badan oo la sheego oo la buunbuuniyo dhinaca fursad helidda dalkaas gudaheeda ragga iyo dumarku aysan ahayn wax saas u weyn sidoo kale waxaa la sheegaa in dalkani uu aad run ahaantii u ictimaado ama ugu tiirsan yahay siyaasad aad uga hortagta wax kastoo dumarka lagu cunsuriyeeyo lagu fogeeyo ama lagu faquuqo ama loogu diido kaalintii bulshada ay ku lahaayeen taasi waa dalka koowaad ee Iceland dalka labaadi waa dalka Finland kaalinta labaad ku galay in uu gaaray ama helay heerka 7.62 haddaba dalka Finland ayaa asna waxay dumarku dalkaas ku matalaan dhinaca siyaasadda waliba si xoog leh sidoo kale dumarku waxaa la sheegaa 50% manaasibta wasaaradaha dalkaasi inay dumar yihiin taasoo ku muujinaysa heerka dumarka dalkaas waa dalka Finland ay u heleen in dalkaas ay ahaantii kaalin libaaxa ku yeeshaan sidoo kale nidaamka tacliimiga ah ama waxbarasho ee dalkaasi ayaa wuxuu yahay mid cadaalad inta badan ku salaysan ama lagu tilmaamo run ahaantiina aad loo kobciyo oo loo horumariyo sidoo kale waxaa la sheegaa siyaasadaha dalkaas ee la xiriira shaqasiinta dumarku inuu yahay mid aad dabacsan isla markaana ku salaysan inuu yahay mid isku dheelitiran isla markaana xoog siiya in nolosha dumarka uu taageero sidoo kalena uu fursad u siiyo dumarku in kaalimaha ama fursadaha ugu horeeya ay helaan sidoo kale dalkan Finland waxaa la sheegaa dhinaca bulshada marka la fiiriyo fikradda bulshadu ay ka haysato dumarka ama kaalinta horumarineed ay ku yeelan karaan inay tahay mid aad run ahaantii xoog u leh isla markaana ku dhisan sinaan iyo ixtiraam iyo in la isdhaafsado midba midka kale aqoonta uu dheeryahay taasoo keenaysa in dalkii si fudud uu run ahaantii u kobco sidoo kale dalka Finland ayaa waxaa la sheegaa in sababahaasi ay keeneen in ay noqoto dalka Finland uu noqdo dal run ahaantii ku habboon dumarku in ay noqdaan waliba kuwa hanka leh weeye dalka ay ku soo bandhigi lahaayeen kartidooda iyo kaalintooda horumarineed ee ay caalamka kula jaan qaadi karaan halkan waxaan u gudbayaa dalka labaad ee ka midka ah 10 dawladood ee dunida ugu soo dhaweynta badan dumarka dalka saddexaadi waa dalka Ireland wuxuu ahaan jiray waayadiisii hore ama lagu yaqaan inuu ahaa dal aad u tiirsan dhinaca muxuu ahaay dhaqamada muxuu ahaay gaamure ama muddooyinka dheer soo jiray balse si fudud ayuu dalkaasi isu bedelay isagoo noqday dal horumar la taaban kara leh isla markaana kaalimo run ahaantii wax ku ool ah Yurub ku yeeshay gaar ahaan marka la xuso waliba si gaar ah loo taabto ayaa dalka Ireland wuxuu aad run ahaantii u difaacaa u dooda u tixgeliyaa mar kastaba garab u siiya xuquuqda dumarka sidoo kale dumarka ku nool dalka Ireland ayaa waxay helaan waa hooyooyinka markii aan ka hadlaynay waxay helaan fursad ah in hooyadu markii ay dhasho ay ku helayso inay fasax ku hesho muddo dhan 182 maalmood macquul ah dalka islaamka lagu sheego haddii xaaladaha noocaas aad ka fiirsid in ay dhici karto total inaad ku arkin taasoo run ahaantii u muujinaysa hooyadu inay fursad u helayso inay ku nasato ilmaheedii ku koriso iyadu muxuu ahaay caafimaadkeeda ay ku soo kamaan isla markaana ay dareento in qof bulshadaas xuquuq iyo ixtiraam iyo run ahaantii kaalin sare ku leh inay dareento sidoo kale dalkan muxuu ahaayay sidoo kale dalka Ireland marka la fiiriyo mushaharka ragga shaqooyinka ka shaqeeya iyo dumarka shaqooyinka ka shaqeeya marka la fiiriyo levelka ama darajada u dhaxaysa ayaa waxaa la sheegaa inay tahay mid aad run ahaantii aan u kala fogeyn sidoo kale marka la eego taageerida dumarka guud ahaan reer Yurub marka la eego gaar ahaan la sii eego dalka Ireland waa dal run ahaantii aad u siiya ilaalinta dumarka xuquuqdooda ha ahaato dhinaca waxbarashada ha ahaato dhinaca muxuu ahaayay mushaharka ha ahaato dhinaca shaqasiinta
ayankan waxay doonto ha ahaato sidoo kale taasi waxay keentaa baa layidhi dalkan Ireland sidoo kale in luqadda Ingiriisku ay runtii kaalin weyn ku yeelato in dumarku ay kaalimahaas aan soo xusnay kaalin mug leh oo xoog leh ay ku yeeshaan taasoo keenta inay si fudud bulshadii u dhex galaan dalka afraad haddaan u gudubno waa dalka Belgium ayaa waxaa lagu tilmaamaa asaguna inuu yahay ahaantii deegaan saaxiib la ah dumarka qawaaniinta dalkaas ka degan ay yihiin kuwa la hormariyey isla markaana aad u taageera dumarka iyadoo dumarku ay aad run ahaantii u haystaan fursado aan la soo koobi karin oo la xiriira dhinaca waxbarashada weliba kuwa jaamacadaha sidoo kalena ay helaan jagooyin aad u sarreeya oo la xiriira shaqooyinka iyo weliba muxuu ahaaye jagooyinka siyaasadeed sidoo kale waxaa la sheegaa in ay dalkaasi waa dalka Belgium uu isku dheeli tiro fursadaha ragga iyo dumarka ay u helaan shaqooyinka dalkaas ka banaanaada dalka shanaad waa dalka Denmark sidoo kale ayaa wuxuu yahay dal aad run ahaantii u kobciya u ilaaliya bulshooyinkooda aad u ilaaliya gaar ahaan wuxuu weliba si dhammaystiran u taageeraa dalka Denmark dumarka sidoo kale dalkan Denmark wuxuu run ahaantii waa dowlad lagu tiriyay inay tahay mid aad run ahaantii ugu fududeysa dumarka inay helaan daryeelka caafimaad iyo waxbarasho aad u sarreysa dhaqankooduna uu yahay dhaqan taageera in dumarku ay shaqooyin helaan kuwaasoo weliba ku dhisan in ay dadku yihiin ama bulshadoodu ay yihiin bulsho istaageersata sinaanta iyo cadaaladuna run ahaantii aad dalkaasi loogu xoojiyo sidoo kale dalka lixaadi waa dalka Canada ayaa waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay dal run ahaantii dalalka caalamka oo dhan dal isaga yimid uu yahay oo soo dhaweeya taasoo keenta in thaqaafada ama dhaqamo kala duwan dalkaas gudihiisa laga helo taasoo keenta in dumarka dunida jooga oo dhan dhaqamadooda halkaas ay la tagaan isla markaana aan lagu cunsuriyeynin oo aan lagu faquuqin saadaraadii dalka Canada ayaa run ahaantii wuxuu yahay dalkaas qawaaniinta ka degani kuwa run ahaantii kulansata dhammaan xuquuqda dumarku ay leeyihiin isla markaana aad u tixgeliya isla markaana fayaqabkooda caafimaad iyo kuwooda xuquuqeedba ilaaliya sidoo kalena dalkaasi uu yahay dal siyaasadiisu ay degan tahay isla markaana dumar haddii ay fursad u helaan ay dalka siyaasadooda qayb weyn ay ka hagi karaan dalka toddobaad markaan u gudubno waa dalka Faransiiska ayaa run ahaantii waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay dal dhaqankiisu dumarka iyo run ahaantii qiyamka ay taageeraan inkastoo dadka qaar ka mid ah ay run ahaantii duraan hase yeeshee waxaa la sheegaa dalka Faransiisku inuu yahay dal deegaan ahaan la dhihi karo wuxuu aad u taageeraa aqoonta iyo shaqooyinka horumarsan ee dumarku ay helaan iyadoo weliba dalka Faransiisku uu aad u taageero xuquuqda dumarka dalkaas qawaaniinta iyo muxuu ahaaye waxa u degan ay yihiin kuwa aad u taageera xuquuqda dumarka isla markaana ka hortaga waxa kastoo meesha ka saari kara ama curyaamin kara xuquuqda dumarku ay ku leeyihiin in ay muxuu ahaaye dalkaas ka shaqaysan waxbarashada sarena helaan isla markaana jagooyinka siyaasadeed dalkaas ay ku metelaan sidoo kale waxaa dalka Faransiiska lagu tilmaamaa inuu yahay hooyada xaaska ahi markii ay umusho in iyada iyo ninkeedaba fasax la siiyo taasoo ku muujinaysa heerka dalkaasi uu taageerayo ama ku taageerayo run ahaantii haweenka haddii halkan Faransiiska aan uga gudubno dalka sideedadii waa dalka Norway waxaa lagu tilmaamaa asaguna inuu yahay run ahaantii dal aad dalkiisa horta dal ahaan hodan u ah isla markaana dalka Norway uu yahay dal ku hana qaaday bulsho aad isu haysato oo dumarka taageerta sidoo kale dalka Norway waxaa la sheegaa in dhaqankooda iyo shaqooyinkoodu ay yihiin kuwa ku dhisan cadaalad iyo sinaan taasoo meesha run ahaantii si fudud ugu hirgelinaysa dumarku in saddexda waxyaalood ee dalka ugu muhiimsan ay fursad ku helaan inay ka shaqayn karaan inay siyaasad imateli karaan sidoo kale in ay noqon karaan dad waxbarashada dalka kuwa ugu sarreeya ka baxa ama hela sidoo kale waxaa dalka Norway dumarka muxuu ahaaye ay runtii leeyihiin hay'ado gaar u ah kuwaasoo dalkaas ku ilaaliya qawaaniintoodu in ay ka turjumayso xuquuqda dumarku inay yihiin mar kastaba mid faya qabta mid la ilaaliyay isla markaana ay noqoto mid sidii la rabay dumarku noloshooda run ahaantii ay iyagu u maamulanayaan dalka qawaaniintiisana aysan waxba yaraatee tacaddi aysan kala kulmayn dalka sagaalaadi
ودلك السويدن ayaa waxaa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay dalalka reer Yurub ee run ahaantii hormuudka u ah taageerida dumarka taageerida haweenka waayo meelaha aan ka xasuusta waxaa ka mid ah dalka Sweden in haddii hooyadu laga dareemo in ninkeeda taageero ay ka hesho in fursado badan ay hooyadaasi ay hesho sidoo kale in ninka laftigiisu waxyaalo badan oo cudurdaar ah loo sameeyo fasaxyo badan la siiyo shaqooyinka mararka qaarkood loo ogolaado run ahaantii inuu si fudud ku heli karo taasoo ku muujinaysa si dalka Sweden uu u taageerayo haweenka sidoo kale waxaa la sheegaa dalka Sweden inuu aad run ahaantii qaybaha dumarka uga taageero inay ka mid tahay dhinaca tacliinta iyo sidoo kale dhinaca shaqada waliba si baaxad leh run ahaantii aad u weyn sidoo kale waxaa la sheegaa dalka Sweden inuu aad uga taageero dumarka inay fursado u helaan inay ka shaqeeyaan dhinaca tiknoolajiyadda iyo waliba dhinaca bulshooyinka laga hago halkan waxaan u gudbay dalka sagaalaad dalka ugu dambeeya waa dalka Lithuania dalka Lithuania ayaa asana waxaa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay dalalkii ka midka ahaa ama uu run ahaantii hoos tagi jiray Soviyetkii hase yeeshee nidaamka tacliimiga ah ee dalkaasi waa mid run ahaantii dumarka u wanaagsan fursadaha shaqo iyo dhaqaalana waa kuwa dumarku run ahaantii kaalin xoog leh ay ku leeyihiin taasoo waliba la dhaho dalkaasi waa dal ka mid ah dawladaha reer Yurub oo waliba aad u difaaca xuquuqda dumarku ay leeyihiin sidoo kalena dalka Lithuania waxaa lagu tilmaamaa in takaaliifta iyo kharashaadka nololeed run ahaantii uu aad uga hooseeyo marka la eego dalalka kale reer Yurub taasoo ku muujinaysa in taasi ay qayb weyn ka qaadanayso hooyadu markay xaas ay noqoto in kharashaad badan iyo nolosha run ahaantii xaaladeeda inaysan la daala dhacayn maadaama noloshu ay raqiisay sidoo kalena siyaasadihii dalku ay yihiin dal taageeraya siyaasadeedu xuquuqda dumarku ay leeyihiin waxbarashada iyo run ahaantii dhinaca siyaasadda intaba tobanka dawladood ayaa ah tobanka dawladood ee lagu tilmaamay inay yihiin tobanka dawladood ee dunida ugu taageerida badan haweenka waxaan rajaynayaa haddii aad ka mid tahay dadka jecel in dalalkaas ay aadaan ama ay ku noolaadaan in aad fursad u helaysid waxaan la hadlayaa dumarka in dalalkaas ay mudan yihiin inaad ka dhigatid dalalka ugu horeeya aad booqanaysid ama nolosha aad ka hiigsanaysid inaad ka bilowdid ama aad jeclaan lahayd in aad waxbarasho iyo wixii la mid ah ka bilowdo aad baad u mahadsantihiin